tahay magaalada Hargeysa ayaa wariyaha BBC Axmed Saciid Cige oo tagay bandhigii buugaagta ee halkaasi muddada toddobaadka ka socday waxa uu kula kulmay oo dood ku saabsan bal dhalinyarada adduunka iyo maalintooda iyo aqoonta dhalinyaradaas iyo wuxuu u qabtay Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud oo ah nin dhalinyaro oo buug qoray iyo Naciimo Maxamed oo iyaduna samaysay film ay ku soo bandhigtay carwadaasi buugaagta oo Finland ayay ka timid iyo gabar kale oo yiraahdo Amran Maxamed Axmed oo iyaduna buug qortay dhammaantoodna waxay kaga wada hadlayeen ahmiyadda qoraalka iyo aqoonta iyo da'yarta. Axmed Saciid Cige wariyahayaga ayaa doodan u qaybiyey. carwada caalamiga ee buugaagta ee Hargeysa International Book Fair ayaa bal dadka ka soo qayb galay ee gaar ahaan buugaagta markii ugu horeysay buugaag ay leeyihiin keenay ayaan doonayaa inaan gudaha iyo dabadaba koox ka socota Finland iyo wiil isaguna Hargeysa ku qoray aan doonaya magacaaga ii sheeg aan ku horeeyo ninka dalka gudihiisa ku qoray buuga. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud. buugayga haddaan si kooban uga hadlo waa buug qiso malaawaala. magaciisa ii sheeg. waxaa la yidhaha laba kala leexday. af Soomaali buu ku qoran yahay 238 bog buu ka kooban yahay. qisada nuxurkeega waxay ku qotontaa laba wiil oo dalka gudihiisa ku barbaaray wax ku bartay dabadeed markii secondarygii dhammaysteen ka fikiray sidii ay nolosha adduunyada guul uga gaari lahaayeen. mid dalka ayuu aaminsan yahay oo qalbigiisa wax biyo dhigay dal jacayl midna wuxuu aaminsan inaan dalka waxba lagu baran karin. marka labada wiil halganka nololeed ay galayaan iyo buug maxay ahayd nuxurkiisu ka hadlaya. waan kugu soo noqon doonaa magacaaga adna sheego walaal. Amran Maxamed Axmed baa la yidhaha. Amran ay Finland baad ka timi. Finland baan ka imin kasoo caraga Ingiriiska haatan ku noolay. bali war buugaag badan baad ii sheegaysaa inaad qortay. kulli buugaag badan waan qoray kuwa caruurta ah CD waan sameeyay documentary waan sameeyay idaacad 8 sano ka shaqeynay hadda TV-yadan u shaqeeyaa laakiin buugayga Finland iminka Ingiriiska waa qoladan TV-ga saar baa hadda la shaqeeyay hoon kabil hore la shaqeyn jiray laakiin buug aan soo halka kaga soo qayb galay waxa la yiraahdaa ubax galool waa buug aan leeyahay oo gabayada maansooyinkayga ila caruurnimo tibaaxaya oo taariikh badan ku qoran tahay. muxuu gudbinayaa marka message-kaad ugu tala gashay halkan marka buuga waxba lagu tala galay inuu gudbiyo fariin. buugu wuxuu xambaarsan yahay suugaan aan kula tartami karo ragga dalka jooga amba Soomaalida ku faanta inay yihiin gabayaa amba suugaanyahan iyo laakiin ujeedada aan halkan u keenay yani haweenku ay gabaygii degaraar bal lagu ogaayay tirin karaan oo la tartami karaan iyo barnaamijkii laakiin ujeedada aan u keenay ma ahayn iib ma ahayn ka faa'iideysi waxay ujeedadu inaan ku dhiirigeliyo dumarka jooga Somaliland sidii ay u soo dhigi lahaayeen badka amba u kobcin lahaayeen suugaantooda u hirgelin. waad maasantay gabadha dhalinyaro iyaduna Finland ka timi magacaaga ii sheeg. Naciimo Maxamuud. Naciimo imse jir batay da'da muhiim ma ahan waxaa muhiim ee qof wadiyartay laakiin marka la eego bal ii waran waa markii ugu horeysay ka timaado miya markii ugu horeysay waay bal ii waran maxaad kaga soo qayb gashay marka carwadan waxaa ugu soo qayb galay filinkeyga oo filmaanaan sameeyaa filintii and inta waxaan u soo qayb galay filmaanta inaan tuso inaan ka hadalno sameyska filmaanta filimkaaga maxaa leedahay kaga soo qayb galaysaa carwadan marka Fatima. okay Fatima waa gabadh magaceeda Soomaaliyeed ama dee gabadh muslima bal ii waran marka maxaad uga jeedaa waxaa ugu jeedaa filimka waxaa u qoray walaasheedii markay kala tegaysa ciyaalkeeda divorce-ku xeers xun u qaataan macni waa la furay ninkii isfuranay iyo walaashaa marka ciyaalkii filin kale fiirsanayeen way ka calool xumaadeen marka waxaan isdhahay waxaa rabaa filin inaan sameeyo oo divorce-ka ka hadlaayo inaysan ahayn dhammaadka adduunka inaysan arrin fiicanna ma ahan laakiin arrin saas u xunna ma ahan waana ku badantay arrintan kala tagga ee single mother la yidhaahdee dabadda dalka ka timaadeen way ku badantay sama aad ugu badan tahay waagaag Cabdiraxmaan baan ku noqonayaa Cabdiraxmaan carwadan maxaad isleed wad ka faa'iiday marka runtii waxaan isleeyahay waa fursad weyn oo ballaaran waayo waxaa meel isugu yimid oo ishor fadhiya dadkii maskaxdooda tuujiyay wax qorayay gudaha iyo dibaddaba iyo akhristayaashii berigii hore waxaa la odhan jiray dadka Soomaaliyeed inta badan waxma akhriyaan laakiin imika waxaad moodaa taasi inay soo beenoobayso masalan buugaygan laba kala leexday habeen dhaweyd baan boorama ku dahfurnay 100 buug baan meesha geynay waa la kala waayayba oo buugtii aan geynay maaha buug kalo saa'id ah markaad eegto waad aragtaa labadan hablood ee ka yimi Finland oo kale iyaguna dibadda ku soo qoray iyagoo jooga wala laga yaabo inuu bi'ad fara badan iyo mujtamac badan oo aan dhiirigelin aanay halkaasi joogin oo dadka Soomaalida ku yaryihiin iyo adigoo dalkii jooga bal ii waran markaas sidee bay kala duwan yihiin runtii laba deegaan ama laba duruufood oo kala duwan ba wax lagu qoraa waxaan isleeyahay
dee qolada qurbajoog iyaga inooga warroone dhallinyarada dalka gudihiisa wax ku qoraysa caqabado badan baa jira masalan qofku markuu maskaxdiisa toojiyo ma haysto cid maalgelisa ma haysto madbacdo fiican oo qiimo jaban iyo quality sare leh hase ahaatee iminka meel fiican baynu maraynaa waxaan jecelnahay in dadaalkaasi uu sii socdo haddii ilahay ka dhigo wagaag su-aashaas marada walaalka weydiinaya bal ii waran maxaad ka faa'iideen carwada halkan aad timaadeen bugaagtiin iyo aad finland ka keenteen intaa usoo socoteen carwadan horta waxyaaba badan baan ka faa'iiday annagu waxaan ahay gruubyadii u horreeyey ee finland ku diyaariya somali studies week marka waxaan annaga isugu keenay soomaalida worldwide joogta 1998 laakiin tan maanta ka faa'iiday waxa weeye anu in badan baan qurbaha ku maqnaa dhowr iyo 30 sannadood 3 bilood baan arkay Hargeysa anoo qariiba baan imiyo dadkii dalkaba ka baqay laakiin maanta ilba iga furantay waxaase ididila leh inay dhallinyaradii barato inay waxna akhriyaan waxna qoraan marka aniga qudhaydu alxamdulilah rabbil caalamiin ididila ay gashay buugaagta marka lagu qorayo dibadda iyo marka cabdiraxmaan oo kale dalka gudihiisa uu jooga wuxuu leeyahay caqabadaan haysto maalgelin ma hayno ma laga yaabo inay tahay laba la isla waa oo idinkuna aad xaggii dhaqaalaha iyo maalgelintii laga yaabo inaad heshaan oo dad xataa madbacada leh oo ajnabi idiin maalgeliyaan iyaguna ay dhiirigelintii xagga kale maskaxdii wixii hayaan oo ay dadkii la kulmayaan ما والله عقبتاس ميل والبا way taala dadka ajaanibka iyo waxay maalgeliyaan waxa iyagu xiiseynayaan oo kolka aad moodeenayteen iyo dhaqankeena iyo diinteena lid ku yihiin laakiin waxa adiga qiyamkaaga iyo akhlaaqaadkaaga ka hadlay ma dhiiri galiyaan umada Soomaaliyeedna dad wax iibsadana ma hadad wax akhristana ma aha marka caqabadaha lacag fara badan bay ka baxday kama isla dawad baranayaan wala buuxa wadarka wala iibsanaya buugta halkan ay waxaan hubaa hadaan buugayga halkan ku publish gareyn lahaa inaan maanta 9 buug oo kala soo saari lahaa ma ku tala jirtaa inaad keento aad iyo aad وهاجاج نعيمه بل يورا دو حاجة في المدها ما حد كفايدي هالكلام مركز سلادة يرجع ماشي عادي هذا واحد بدنا كسو فايدي dalka oo Finlandi horta waxaan ku faraxsanahay in halkaas joogay because an opportunity oo san inta laga helinayna ka helay waxaan ku soo bartay Ingiriiska waxaan ka soo bartay Mareykanka Los Angeles Film School xataa ka soo baxay marka support badan ay ku siinayaan markaad qoraysid haddana culture-keena anaga dhaqankeena arrimo badan ka faa'iideynaa marka labadaas marka isku dirtid waxaa sameynaysaa wax oo aasan arkeenin filmaanta kale oo cadaanka sameynaya camal aad baad u mahadsantiin ciidan aad buu mahadsan yahay kuwaasina waxay ahaayeen Naciimo iyo Amran iyo Cabdiraxmaan oo buugag iyo filmo ku soo bandhigay carwada buugagta ee magaalada Hargeysa Axmed Saciid Cige ayaana doodaasi aad maqlayseen u qabtay stuudiyahan ku soo noqono